haatana ku soo dhawaada war degdeg oo inaga soo gaaray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. warka ayaa u qornaa sida tan: maanta ay taariikhdu tahay 1 Janaayo sanada 2019 wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xiganaysa heshiisyada caalamiga ee ku salaysan xiriirka ilaaqaadka diblomaasiyadda ee caalamiga waxay dowladda Soomaaliya ay ku wargelinaysaa xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhacaysa in aan wadanka laga rabin kana shaqayn karin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom. go'aankani waxa uu salka ku hayaa baa lagu yiri warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu si cad u jabiyay hab maamuuskii iyo dhaqankii ku haboona xafiiska jamciyadda qurmaha ka dhacaysa ee Soomaaliya si bareerahna u fargeliyay madax banaanida qaranka Soomaaliyeed. sidaana waxaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo nuqul kamida goordhow soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka qaranka Soomaaliya.